daawadayaal maanta waxaan u soconaa waxna laga casuumay Kent Film Festival oo marka maanta laga sheegi doono film oo ay samaysay gabar Soomaaliyeed oo magaceedu Faalmo. Videogan dhamaadkiisa aan ku arki doontaan alaan weydiinay iyo adiga waxyaabo badan marka weli waa sii soconaa. لما لقى أركوي لكن حجران سلا مدوية فيريا جدال دي ممكن تي جدال دي ممكن تي جدال دي هنا جيت لا عمل كثير Waiting for Gawan, we're waiting for the trailer, but we have you. So, maybe for the people who might not know Cine Maximilian, can you give us an idea of exactly how you started and what it is? Yeah, clearly is that we don't work only for newcomers, but we really work together with newcomers, like on all levels, like from organizing events in the office, doing logistic work, doing audience development, individual following up with people. We are one big family, and the family is never too small. Like always, the door is open to join and to become bigger. How did this whole adventure start, Gawan? Sorry, did I? Oh, sorry. Three years ago, we went to Maximilian Park just with a beamer, and we thought we'd go there. We show a movie one time, maybe next week we come back. The people are super enthusiastic. They say, you come tomorrow, and we come tomorrow. And since then, we came every day, more or less. Yeah, Fatmi is amazing. She wrote a long time of the story together with Hans van der Vos. She went a long way, and she really made a film that is close to her heart, and she really told what she needed to tell, so it's very strong. But what she needs to tell, I will not tell, of course. Because we will be seeing it, let's give a big hand of applause to Gawan and Jenny. I want to give an applause to many people in the audience because we do this with a lot of people together at Cine Maximilian. There will be so much applause. Applause for the person who can launch a trailer. You never know, it might happen. Don't applaud before it's done. It's a happy moment. Yeah, let's call her up on stage, Fatma Osman!
first woman from Somalia to play and direct a movie like ever. Congratulations. Fatma, this was always your dream. You always wanted to make movies, even when you were still in Somalia. Yes, true. I always wanted to make a movie, and I'm so glad that I did it today, and I'm very proud of it. Producers down in Banjuli, assistant director Diren, assistant director, camera assistant Daniel, sound Asad Ibrahim Owan, sound mix Liv, Kairan and Sandra. Editing Guillaume, assistant editor Leonard, script girl Angela, art direction Ran, makeup Kevin, worship team Edgar, Lubnan. So, guys. All right, where are your sound guys? Sound guys are. Come here, come on over here. So how did that work? Do sound in one day? De Nederlands, heel goed. Stel je naast mij. Vertel, hoe heb je dat geleerd? And they told me that I have to act. So I go to the makeup room and then I do the all things. So it was amazing, seriously. And I meet Hans, I meet a beautiful family in Cinemaximilian. Seriously, I got a good experience with all this family. I want to tell them thank you. Seriously, yeah. All right, thank you. I'm sure we'll be seeing a lot of you again. Yes, Fatma, you can thank everyone one last time. I actually want to ask Leven the Culture also to come to the stage because he was actually named the movie in somehow. So I would love him to stage on. I would love to have him on stage. Sorry. Leven, are you here? Leven, he's there. Don't be shy. Come on. And I would love Duran to say something. Duran was the beating heart of the movie. Yeah. He kept us all together. I was bad cop 80% of the time. Maybe something really short. I'm very grateful that I had the opportunity to work together with all of these talented and wonderful people who not gave us just their time, their free time, their spare time, but also their heart. And I think the projects we do at Cinemaximilian is a proof that cinema has no boundaries, no limits. It can connect, it can bring people together and light the darkness, light the day, as they say. Great, thank you. Let's give them a last applause. And get back to the movie. Thank you, Fatma Osman. Bye. Thank you. ما قصالك ويدينا وانت عرفت تجيبني هاي واكنا soo dhawaada waatana gabadheeni oo maxay aan ku faano marka la horta hambalay aan ku leenahay waxaan ku weydiinaynaa dhowr su'aalood oo saasna u badan marka hore horta magacaaga iyo filimkan goortuu bilowday sameyntiisa iyo yani intuu qaatay ma sheeg magacayga waa Fatma Osman wuxuu qaatay filimkayga sameyntiisa horta qoritaankiisa wixii qaadatay bilooyin yani waayo directorka la shaqeynaa wuxuu lahaa deadline soo lahaa marka waa isku dirdireynay ahayd qoritaanka filimka bis waxaan bilownay July 14keeda waxaa dhameynay July 20keeda caawa
وفرحسن تهاي إلا يمركي ستيج هذا فيلم كان هذا لو جعل استعداد كده إنه ويستاجر إن أديك محادث لا هذا فيلم كده كنا يكون جعل هذا حتى إنك استوى سبتايتل إنجليش حدنا حتى دتك كلا دتك داونا وحب بدنا دت أجنبية عدان مركب محادث لا هذا فيلم كده والله جعل هذا أديك وساسو والله waxyaalo badan oo ka hadlaya yani dadka Yurub joogan qaxootiga ka hadlayaan qaxootiyaasha iyo nolosha ku nool yihiin iyo kaamka nolosha sidee tahay iyo dadka qaar yani inay helaan sharci inay helaan waxyaalaha qaar u sameynayaan oo yani aan ka lahaa maxal jiray ma u baahna waxaasna inay sameeyaan fariinaad gudbinayaan فيلم كمان حصل سميسان إن ضد مع organization أو ما جعلنا كل هذه شيء دونا وحال سينماكسيميليان أوكي إن مركز سوق روح بدنا لو سميه ضد كأذي وهلا أنا وجه على مركز يعني محاب بلانك أو نكستيجا محوا إن فيلم كلا سميه سواء مع أي كلا سميه سواء ضد كلا أو حرير ضد ملايا لتهاد أو يعني أو كبحسن إن ضد كهذا فيلم كلا سميسان ها ويجران أصلاً وحاجرو دايركتور وين أو لقي قانو بلجيم خاصة دينا أو فلاندرسكا وحال الله ميشيل روسخام وحو إيمان دونا مردو وحو إيمان دونا سينماكسيميليان لقي واسي فيلم إنا الله سميه بس هذا أهان مهو يعني إنا فيلم كلا سمينا أوكي لكن لو كانوا يسددي توانك كان واي هذيك سغالي توانك يعني ayada mid kale hadii aan ku weydiiyo marka adiga filimka wuxuu ahaa kii ugu horeeyay aad qorto ama sidoo kale aad jisho markaad ka sida haday waraysiga uu ninka ku su'aalayba markaad ka maarmiyay adiga characterkaas aad jishay runtii jilliinkaagana yani waa adiga waa complete wuu dhameystiran yahay marka filimka iyo sheekadaadii oo saas aad u dhax gashay ma kugu caawisay mise kaliya muraajacaad sameyn jirtay may xiliya muraajaca ku sameey horta ma bahaysanin okay waayo filimka waan qoray waa director gareeyay waxa la jiray وانا جنة انت بهالمرة اسكو سمي بس يعني أنا أهان مراجعة ما هي سنة وقت يقص waxaana la joogo mid ka mid ah aktaradii ugu waaweynaa filimka jilaayay isaga ayaan weydiin doonaa magaciisa iyo maxay ahayd oo qaybta filimka jilaayay waa maasantiin kulli filimka wada oteen waa markii ugu horeysay oo aan filim ama aan ka qayb qaato ama wax jiro laba maalin ka hor filimka intaan la duubin aan faadumeys aragnay ko waxay raadinayeen qof oo codka iyo maaragtay mikrofoonada dhinacaas ka caawiyo markii waxay sheegeen in mikrofoonada ka caawiyo doono laba maalin adiga markii maalin markii ka dhimantaa waxay ugu dhaheen hadana waxaan u baahanahay inaad naga caawisid scriptiga qof turjumo kale taa u baahanahay ka bacdi waxaan ka caawiyay scriptiga markaan scriptiga ka caawiyay kadib waxa la sheegay hadana sidee u aragtaa hadii adiga jishid filimka يعني والله يا أبي سويته أمريكي يقول رئيسه سيد عادي يعني سناب جات حتى إسكمه ضو متجع لينا كاميرا ديو عاورسته هيا ده هاي وبروبيني ريحصل كمركز سمي وحي أديك كاستين يرا سمينك بعد فيلم كسيدي أخو قلة أوكي إن فيلم كم قيبتك كجلسة فيلم كي مين أكتر كأها فيلم كأن وحن كجلة مجا أسد يعني waxaan ku jilaay wiil laba gabdhood shukaansanaayo oo shukaansanaayo yani ujeedo sidoo sharci ku heli lahaa maadaama aan dhamaanteen aan ku wada jirnay center waxa u shukaansanaa gabdhahaas yani sidaan ku jilaay xaqiiqda ma laag sidaan ku jilaay waxa shukaansanaa mid sharci hesho yani ina yani aan wax ku darsado okay marka faadima hadan marka isku soo laabano filimka waxaan isla sameeysan adiga iyo sidoo kale dad oo asxaabtada liibaan muno mahdiya miyaa gabadha kale magaceeda mudan okay aad isla wada sameeysan iyo Ibrahim sidoo kale marka sidee ahayd in markii ugu horeysay oo يعني dad markii ugu horeysay kaamirad oo hadana filimkiina ay sameynayaan dad oo calashan ajnabi hawshiisa ay ku jiraan iyo inaad isla hawshaas isla qabataan sidee ahayd wallahi horta way adkeed ahaan waayo horta dadkan dhan hada filimka la sameeyay waxaan ka garanay kaliya muna way waa saaxiibadeeda qaali ayada bisa ka saay ayada darteeda dadkan kala ku sii bartay
kulligeenan filin ma wada sameynin waa run bas way adkeed yani marka aniga aan kaamirad ku soo qaato aan ku dhaho waxba ka duubay ama qof kale oo Soomaaliya uu joogo iyo marka oo dad kale ay yihiin way kala duwan yihiin hadana saas ay tahay iyo filimka marka uu fiirso runtii aaday yani ay u sameeyeen oo wada keentay dhamaantiina marka habeen ugu horeysay marka filimka dhameynay waa yani macquul way la ahaan weys yani inaan filimka sameynay oo yani si fiican oo u dhacay oo yani dadka dhan ay la yaabnaayeen anagoo kulligeen soo marka inta Soomaalideena oo marka ugu horeysay ay tahay filim wada way lay wada yaabnaayeen marka ani ahaan waxa dareemayay proud runtii horta aad u kala duwan tahay marka filin standard laga hadlo oo filin caadi laga hadlo iyo marka filimaanta Soomaalida ay sameeyaan yani isku qaab ma ahan adiga laftiga Usmaan waa ogtahay sababtoo ah filimaan badan aad sameysay wax badan oo ka ogtahay dhowr marna waa ka hadashay social media waa ka hadashay si Soomaalida u sameeyaan sida adduunka looga sameeyo quality iyo waqtiga juhdiga la gelinayo Soomaalida waxa arkaysaa yani riwaayad oo 2 saac soconayso oo hal maalin ama 2 saac lagu duubayo oo degdeg lagu duubayo qof darbi taagan qof iska ordayo wax aanan yani sad lahayn script qoran oo sin jirin oo iska hadal qofka isaga duubayo hal saac film riwaayad hal saac soconayso oo TV-yada ugu weyn oo Soomaaliya ka baxay waxa arkay hal maalin ama ka yar lagu duubo marka aad u kala duwanaad filimkan waa short movie oo 20 daqiiqo soconay waxaana ku duubnay hal isbuuc oo maalin kasta ay ahayd 10 saac markii ugu yartahay aan ku duubnay marka aad u kala duwantahay marka waxa ugu baaqlay dadka bulshada Soomaaliyeed sida dhalinyarada xoog saaraan sidii wax oo adduunka kala tartami karto soo saaraan horta waa sax especially dhalinyarada filmaanta sameeyo ama kuwa youtuberada ama kuwa filmaanta yararka sameeyo ama kuwa xataa TV-da ka shaqeeyo riwaayadaha sameeyo yani markasta waa inay xoog saaraan intaysan waxa soo bandhigin content-iga quality-giisa ay xoog saaraan sababtoo ah bulshada wax u gudbinaysa xataa Soomaali bas xataa inaa ka fikirtid ma aha dadka daawan doon dad kala daawan doonaan waxa mararka qaar waxa lagu weydiin karaa filmaanta Soomaalida disho kale taa u baahan hadii qof ajnabi ku weydiiyo hadda markii oo videoga marka la daawado dadka ilaan anigana way og yihiin iyo Ibrahim iyo maxay ahayd inaan filmaani aan sameeyno dhankeena iyo yani hawlahaas aan ku jirno iyo dhanka xitaa dhinaca theaterki marka dadka waxay isweydiin karaan isdhihi karaan oo aan ogahay su'aashooda yani gabadhan iyo film sameysay Usmaan iyo meesha isla wada joogaan calaashan film ma ka wada shaqeyn doonaan ama ma wada sameyn doonaan ama yani maxaa isdheeyay taban إن شاء الله مستقبلكم أسلا سمعني دونا إن شاء الله مركا ugu dambeyn maxaa rabtaa markii inaad dhahdo xagga oo hadii aan ka weydiiyo oo sida ay dhalinteena ka yihiin hadda markii aad aragtay macnaha filnaad rabootay inaad sameyso wax oo dad Soomaali dad qof yani u baahan yani aad tahay ina filmaanta aaxiisid mise filmaan ina sameys arabtid hal mar yani وقتها يعني هالمر كلية سي يعني just هالمر فيديو يردوب أم وحلي يعني سمي أو يعني نفس ده كو قناعسيد أو كل رجليو مركا حدي لا Soomaali ذين فيلمان وأباهنا نه صوبته إن شاء الله مركا وحن لنا هاي سود وهذا هذين كان سيدو كلا وحن ملنا يا قفكي فيديو كان داوده إنه صو همبليان دونا فاطمة عثمان أو كبدا سميسي فيلم كو أرمانتا حقا أو إن كنت فيلم فيستيفال مال أو فيلمانتا لو صو بندقو سنة كيبا هالمر بيشان حلقان أو كل مركي تاي صح؟ وبرنامج وين أو جرا إلا إيو كونتان سنة هذا أو بلجيم لقي يقانو يعني وبلجيم لحظة بس وانترناشونال واي عالم كنا نلوي ماذا يعني وقول ويرتي أنا قدام يعني مركو هرير Soomaali أو بلجيم أهان مركز حتى Soomaali أهان مركا وحان إذن لنا هاي وصاحب بليان أدين كنا سدوا كلا. Two of the audiences who saw the movie, so I would like to ask first your name. It's Ayham Jam. Okay, yeah, Ayham. You watched the movie, right? Yes. So how did you like it? Well, it was intriguing. It's a short film, and it's in a different language, so it was a new experience, I guess. I've not watched many foreign language films, especially not a short language film. I was surprised actually that it was a well-written scenario, and the camera work was pretty decent too, especially made with a small budget and in a small set, I guess. So it was okay. It was. Yeah. Did you get any emotional attached to the movie? Like, did you
feel something? Well, I actually, like, my own life story is actually similar to the movies. I'm also a refugee here, so I can relate to a lot of the subject matter in the movie. So that was nice too. And if I relate to the movie, I'll probably like it, I guess. So yeah, it was okay. Yeah. Thank you very much. Yeah. Now we have again one of the audiences again. Your name first, please. My name is Jeffrey. Yeah, Jeffrey. So you watched the movie, I guess. Yeah, I liked the movie in a way. Like, it also intrigued me. It moved me because I had different expectations of the movie, because I know one of the actors, Livan, and we were friends in college. And when he told me I acted in a movie, I was really expecting some. I didn't know what to expect. And then after seeing the movie and seeing how it really is, it gave me some thoughts about reality, about how life could be in different situations. The movie itself, it just made me think, as being a Belgian citizen with papers, with a mother, with a dad, I had all these things for granted, and I think not only me but also other people should see their own situation and think how life would be if we hadn't had all the chances they have right now.